السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كيستا تي في وبرنامج كالي او غابان او كسابسان تراكينكا اما تراجيدا iyo inspectionka kusoo socda sanadkan 2021 ayaa waxa soo socda inspectionkii sida caadiga ahaa loo qaadi jiray sanad kasto marlaha ah. Inspectionkan ayaa waxa uu dhacaa bisha May ayuu dhacaa markasto waana 3 maalin oo kabta la isaga istaago. Waxa hadaba ay xooga saaraan badanaaba marba waxbay doortaan, laakiin sanadkan waxa ay sheegeen in ay xooga saari doonaan lightingka ama aan iraahdo layrarka gawaarida, brake lightska, clearance lightska, maxaan iraahdaa headlightska, and all this frajooyinka waxaan oo dhan ay waxay saari doonaan insha Allah xooga, maadaama ay sheegeen in sanadkii 2020kii uu ahaa wixii ugu weynaa oo gawaarida looga dhigay tigidhada ugu faraha badan ay ku bixiyeen booliiska dalka Mareykanka. Lightingka ayaa ah mid aad iyo aad important u ah marka la fiiriyo taraaga xagiisa iyo visibilitygiisa iyo gaariga inuu muuqdo, laakiin waxa arkaysaa gawaari fara badan oo lightskooda aysan shaqaynaynin ama headlight ka guban yahay xabad, ama uu clearance light ka xabad ka guban yahay, ama uu ka guban yahay nalka dambe, ama brake lightskii ay shaqaynaynin oo mar walba aad isleedahay gaarigaas uu taagan yahay laakiin uusan taagnayn oo brake uu hayo. Hadaba aad iyo aad ayay u fiiriyaan state patrollada ama state trooperada xagga lightka oo taraagada ku saabsan, sida gawaarida yaryar oo kale ulama dhaqmaan xooga ay saaraan in ay tigidho ku bixiyaan in dadka ay ku istaajiyaan. So 20% of waxay dhaheen 20% gawaaridii la istaajiyay waxaa loo istaajiyay nalal aan shaqaynaynin, lights inoperable bay yiraahdeen. haddii marka lightka uu shaqaynaynin dambiga ugu faraha badnaana uu noqday, waxaa dhacda in maaragtay ay hadda sanadkan intay isu tageen bay waxay go'aansadeen in ay xooga saaraan lightingka ama layrarka gawaarida. Tan labaad waxa ay rabaan in ay waxa labaad ay xooga ay saarayaan waxa waaye saacadaha darawalka uu shaqeeyo. Waxaa jiro regulations saacado ayaa jiro la shaqeeyo, saacada aan la shaqayn karin darawalka waxaa laga rabaa in 12 saac gaariga uu wado sida caadiga qofka dadkiina taraaglayaasha waa taqaanaan 14 hours ayaa loo ogol yahay maalinkii inuu shaqeeyo, 13 uu on duty ku ahaado ama gaariga ku raro ama ku dajiyo ama rar ku soo qaato saddexdaas saac iyo 12 saac oo wadid ah. Marka waxay yiraahdeen 34% ama 34% gawaaridii ay istaajiyeen oo taraagada ahaa waxaa darawalada badankood out of service looga dhigay xagga hours of service ama HOS-ka oo ku saabsan saacadaha. Marka waxay yiraahdeen maadaama saacadaha iyo lightingka ay yihiin waxa ugu faraha badan oo loo istaajiyo darawalada, waxaa muhiim noqotay sanadkan in xooga la saaro labadaas arrin. Marka maxaad uga hortagi kartaa? Waxaad uga hortagi kartaa as a driver ama as a maaragtay owner operator ama company driver, whatever aad tahay anyways, mar haddii gaarigii aad wado waxaad uga hortagi kartaa arrinkaas in aad lightska inay shaqaynayaan pre-trip fiican aad iska samayso oo lightskaaga inay shaqaynayaan aad xooga saarto marka hore. Marka labaad looga iska sax oo ogtihiin in ELD la iska dhigay electronic logging devices ama computer la isku xiray gawaarida lagu xiray, nin walba saacadihiisa uu garan karaa waqtiga uu socday iyo waxa ka qaldan iyo sidee wax ka yihiin. So waxaad yeelaysaan looga iska sax. I don't know how far ay dib u noqonayaan, laakiin badanaa waxa dhacdo 2 weeks bay noqon doonaan, ma bil bay dib u baari doonaan loogaagi, ma 2 maalin bay dib u baari doonaan, ma naqaano. laakiin waxa xooga ay saarayaan waa saacadaha oo hours of service-ka ah iyo waxay xooga saarayaan gaarigaaga lightskiisa in ay shaqaynayaan. Labadaas arrin haddii aad iska hagaajiso ama iska geejiso waxaad fududaanayso in maaragtay inspectionkaagii wixii kale ay ka fududaadaan.
waxa haddii xooga u saara haddii lightska tahay brake lightska clearance lightska signal lightska headlightska intaa haddaa iska jeegarayso oo aad iska fiiriso tareelaha iyo taraagaba oo aad iska hubiso in ay shaqaynayaan saacadahaagana aad maaragtay iska habayso diyaarsato oo ay diyaar ku yihiin go back all the way loogaaga soo saxo hadduu ilaahay idmo haddii loogaaga uu ku saxan yahay nalalkaagana ay ku shaqaynayaan sanadkan intaasay xooga saarayaan waxaa kale oo ku tashanayo arrinkan kambaniyada shipperska la yidhaahdo oo laga soo qaado alaabta loo soo qaado ama kuwa loo soo qaado iyo kuwa loo geeyaba arrinkan wuxuu ku keenaa sanad kasto dib u dhac weyn because dadka gawaarida duqda wata dhan way ka fariistaan shaqada dadka gawaarida fiican watana riski ma qaataan badana in wax violation laga helo ma rabaan dadkaas waxaa usii dheer in darawallada wadada saaran ay yar yihiin lacag badan ayaa wax lagu qaadaa saddexdaas beri waa May 4 to May 6 insha Allah sida ay soo qoreen saddexdaa beri in maaragtay lacag fiican ayaa wax lagu qaadaa laakiin riskiga fara badan oo roadside inspection baa lagugu sameynaya wadada lagugu istaajinaya way stationada dhan waa la buuxinaya gawaarida laga buuxinaya shaqo adag ayaa laga qabtaa saddexdaas beri waana international marka international nidhaahno waxaa ka mid ah Canada iyo Mexico iyo US so taas waxay ka dhigaysaa international inay yihiin laakiin waa CVSA-ga sanadkan labada arrin ayay doorteen waxaan u malaynayaa arrimihii cudurkii socday iyo wixii hadda xoogaa dib bay u kala dhaceen oo waa yar yihiin so inspectionka wuu jiri doonaa hadduu ilaahay idmo May 4 to May 6 ku talagal haddii aad ka gabanayso ka dhabanayso iyo haddii aad wadada soo korayso nin isuba aad tahay intaba bari hore breegyada iyo waxaas ka daba wareegi jireen steeringka iyo laakiin hadda labadaas arrin ayay xooga saarayaan lighting iyo hours of service ayaa xooga la saaraya labada arrin hadda iska saxdo you good to go insha Allah taala wax dhibaato ah kala ma kulmaysid inspectionka soo socda sidaas ayay hadda soo sheegeen oo ay qorayaan waxaan rajaynaynaa mid kale ninkii Ray Martinez ahaa oo FMCSA da xukumi jiray waa tii waagi dhaweyto uu shaqada ka tagay 2019 kii almost dhamaadkiisii waxaa hadda lagu soo bedelay oo Biden uu magacaabay naag kale uu magacaabay naagtaas uu hadda magacaabay dimuqraadiga wax khayr kuma ogi laakiin in ay wax bedelaan waan rajaynaynaa insha Allah taala ama way noo fiicnaan doontaa ama way noo xumaan doontaa laakiin horta waa in Senate-ka ay soo martaa la soo approve gareeyaa iyada nafteeda so waxyaabaha policies-ka cusub ay la timaado waan arki doonaa laakiin so far hadeer arrinkaasna wuu cusub yahay oo waa iska breaking news idinku sii dhexdaraan rabay insha Allah taala bal waxa policy cusub ay la timaado waan idinla wadaagi doonaa laakiin so far hadeer everything is good lightingkaas iyo hours of service ayaa la iska fiirinaya so logbookaga saxo nalalkana iska hubi don't forget to like the video insha Allah taala waad mahadsantihiin inta inala daawateen haddii intan aad soo gaartay haddii aad hore subscriber u ahayna subscribe garay channelka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh